sayaquulu waxay oran doonaan as-sufahaa'u kuwa wax magaradka ah min annaasi dadka xaalay ka mid yihiin sufahadaasi oo min annaasi sufahada laga xaaleeyo maa maxaybaa wallaa ka jeediyey hum mu'miniinta can qiblatihim qibladoodii iyo dhinacoodii allatii qibladaasoo kaanuu ay ahaayeen calayhaa calaa tawajuhihaa wa istiqbaalihaa ujeensigeeda kuwa ku dul sugan qul waxaad dhahdaa nebiga suubanow lilaahi alle oo keliyay u sugnaatay almashriqu qorax ka soo bax iyo walmaqribu qorax u dhac yahdii ilaahay wuu hanuuniyaa man ruuxii yashaa uu doono alle hidaayatahu hanuunintiisa ilaa siraatin jid xaggiibuuna ku hanuuniyaa jidkaasoo mustaqiimin toosan oo waagii horeo qiblada laga jeeday oo loo jeeday baytulmaqdes bay waxay gaaladu yidhahdeen markii qiblada la leexinayay hadday waagii horeeto muslimiintu xaq ku sugnaayeen oo qibladii hore xaq ay u ahayd ka tegitaanka hadda ay ka tageen waa xaq ay ka tageen haddaysan waagii hore inay halkaa u jeestaan ku khaldanaayeenna hadda wax khalad ay dadka diin uga dhigayeen bay yidhaahdeen ilaahay baa wuxuu leeyahay meel kastoo loo jeestay mar haddii ilaahay uu raalli ka yahay bari iyo galbeed baa isagaa iska leh wakadaalika sidaas oo sidee ah kamaa hadaynaakum sidaan idiin hanuuninay si la mid ah ayaan jacalnaakum waxaan idinka yeelnay ummatan ummadaasoo wasatan dhexdhexaad cadaalada ah litakuunuu saad u ahaataan shuhadaa'a kuwa ku marakaca calannaasi dadka dushooda wayakuuna uu ahaado alrasuulu rasuulkuna calaykum dushiina shahiidan mid ku markhaati fura wamaa jacalnaa kama anaan yeelin alqiblata qibladii allatii taasoo kunta aad ahaan jirtay calayhaa dusheeda mid ku sugan leexinteeda qiblatan laka adiga qiblo kaagama anaan dhigin ilaa linaclama ay ilaa linumayiza saan u kala socno mahan oo u kala saarno man ruuxa yatabicu raacaya alrasuula rasuulka minman ruux saan uga socno yanqalibu u noqonaya calaa caqibayhi cirbihiisa dushooda oo raadkiisa dib ugu noqonaya wa in kaanat leexintaa qiblada la leexiyey waxay ahaatay la kabiiratan mid culus oo weyn ilaa cala aladiina kuwii dushooda maahane hadaa uu hanuuniyey allaahu alle wamaa kaana muusan ahaan allaahu alle liyudiica mid dayacayo laamuljuxuud weeye iimaanakum salaadiinniya aad baytulmaqdis u tukateen in allaaha alle binnaasi dadka la ra'uufun mid u dhimrin badan weeye raxiimun ee naxariis badan wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum laba tafsiir baa ku jirto mid waa kaan macnaynayo dee saxaabada ishkaal baa ku yimid haddii baytulmaqdis laga soo leexday oo kacbada loo soo leexday salaadahayga hore aan u tukanay meeye midda kale dad baa ayuu weli halkaa u tukanayo qibla u haysta sidaa ku dhintay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay salaadaa dayici maayo ilaahay oo iimaanka la sheegaya waa salaadii tafsiir labaad baa wuxuu yahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum iimaankiinnii inay qiblo idiin tahay baytulmaqdes waagii hore aad rumaysnaan jirteen ilaahay idinka dayici maayo maadaama amar ilaahay aad ku joogteen labada tafsiirba waa laba sax ah qad naraa waanu aragnaa taqalluba wajhika wejigaaga gadgadoonkiisa fi samaa'i samada dhexdeeda xaalaad tahay mid eegay falanuwalliyannaka waan ku jeedinaynaa qiblatan qibla ayaan kuu jeedinaynaa qibladaasoo tardaa aad raalli ka tahay haa ayadee fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masaajidkii dhinaciisa masaajidkii alxaraam ee xurmada lahaa waxaythu maa meel allaala meeshii kuntum aad ahaataanna fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaashiina shatrahu masaajidka dhinaciisa waina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka waa towrade la yaclamuuna waxay og yihiin annahu nebigu sala allahu calayhi wasalama iyo jeedintan labaduba alxaqu dhab inuu yahay arrinkaanu arrin dhaba inuu yahay toos bay u og yihiin waana garanayaan wax kalaa u diidan marka inay ayagu u hoggaansamaan ayib waina aladiina kuwa uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la yaclamuuna waxay ogyihiin annahu jeedintaani alxaqu xaq inuu yahay xaqaasoo min rabbihim rabbigooda xaggi ka ahaaday wama allaahu allana bigaafilin mid moog ma aha camaa waxa yacmaluuna ay samaynayaan wala in atayta haddaad ula timaadid aladiina kuwii uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka
bikulli aayatin caddayn kasta maa tabicuu ma raacayaan qiblataka qibladaada wamaa anta adiguna bitaabicin mid raacaya ma tihid qiblatahum qibladooda wamaa bacduhum ayaga gabalkooda waa gaaladii iyo ahlu kitaabkii bitaabicin kuwa raacaya ma aha qiblata bacdin kuwa kale ama gabalka kale qibladooda ayaga laftirkooda iskhilaafsan walaa in ittabacta haddaad raacdid ahwaa'ahum jacaylka naftooda iyo hawadooda waxay jeceshahee guracan min bacdi maa shay gadaashi jaa'aka kuu yimid min alcilmi shaygaasu xaaluu yahay aqoon oo min alcilmi jaara majruurkan jaa'a faacilkeeda laga xaaleeyo innaka adigu nebi maxamedow idan markaas la min adaalimiina kuwa gardarsadaad ka mid tahay raacitaanka kuwaas aad raacda inay ku gardaran aladiina kuwa aataynaa aan siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka kuwa aan kitaabkii siinay ahlu kitaabka yacrifuuna way garanayaan hu nabi maxamed sal allahu alayhi wasalam xaqnimadiisa kamaa sidii bayna u garanayaan yacrifuuna ay u garanayaan abnaa'ahum caruurtooda wa ina fariiqan gabal iyo kooxdaasoo minhum ayaga ka tirsan layaktumuuna waxay qarinayaan alxaqa xaqi ayay qarinayaan oo nebi maxamed tilmaamihiisii ah walxal hum ayaguna yaclamuuna ay garanayaan arrinkaas alxaqu xaqu min rabbika rabbiga xaggiibuu ka ahaaday falaa takuunanna ha ahaan nebi maxamedow min almumtariina kuwii ka shakiya xaqa walikullin ummad kasta waxaa u sugnaatay wijhatun ay qiblatun qiblo qibladaasoo huwa ruux kulligaas mid kastoo ka mid ah muwalliihaa mid u jeedinaya uu yahay ay wejhu wejigiisa ka dhiganta xaggeeda fastabiquu u tartama alkhayraati khayraadka u baratama oo ku baratama aynamaa meel allaala meeshii takuunuu aad ahaataan ya'ti wuu idin keenayaa bikum idinka allahu alle jamiican dhammaan xaalaad tihiin in allaha alle calaa kulli shayin wax waliba qadiirun midkii kara weeye walikullin wijhatun ummad kasta qiblo inay lahaan jirta weeye huwa muwalliha laba tafsiir baa ku jirta kaa aan marray baa xoog badan oo ah huwada ilaahay inaan loo celine qolyaha qibladaa iskale loo celiyo huwa asagu muwalliha wejigiisa mid u jeedinaya uu yahay tafsiir labaad baa wuxuu yahay huwa alle in loo celiyo ummad walba qiblay leedahay ilaahay baana huwa asagu muwalliha mid u jeedinaya ah waa hadda sidaa hadii la yidhahdo waxaa ka dhalan ummad meel qibla sax aan ahayn u tukato ka diin dhiganaysa in la yidhahdo ilahay baa sharci ahaan u jeediyo raallikaa arrinkaasna sax maa ayib wa min xaysu meel allaala meeshii kharajta aada u baxdood aadid ama oo safar ah fawalli jeeda wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masaajidka dhinaciisa masaajidka alxaraam ee xurmada lahaa wa innahu jeedintaasi lalxaqu dhab weeyaan min rabbika rabbigaa xaggii xaalu ka ahaaday wama allaahu allana bigaafilin mid moog ma aha camaa waxaa tacmaluuna aad samaynaysaan wa min xaysu meel allaala meeshii kharajta aad u baxdid fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjidi masaajidkii dhinaciisa masaajidkii alxaraam ee xurmada lah waxayumaa meel allaala meeshii kuntum aad ahaataan fawalluu jeediya wujuuhakum wajiyaashiina shatrahu masaajidka dhinaciisa facalnaa daalika arrinkaa waan samaynay lianlaa yakuuna suusan ugu ahaan linaasi dadka calaykum dushiina xujatun caddayn daliil iyo waxaweyaan sheegasho ilaa bimacnaa laakiin lagu macnayo laakiin aladiina kuwa dalamuu gardarrada sameeyey oo minhum gaalada ka mid ah ayaga waxa weeye dee xujadooda waxba ka tari mayso lahum alxujatu albaatila aw almujaadalatu albaatila kuwa waxaa usugnaaday gar weliba gardarra ah ayib waxaa kaloo tafsiir labaad ah inaan bicnaa laakiin laga dhigin ilaada sideeda lagu wado ila aladiina kuwii mooyaane ilaa kalaama aladiina kuwii hadalkooda mooyaane dalamuu gardarrada sameeyey minhum ayaga xalay ka mid yihiin falaa takhshawhum kuwa ha ka baqina wakhshawnii aniga iga baqa waliutima nicmatii nicmadayda saan u dhammaystiro oo waxay ku xiran tahay wakhshawnii waxaad iga baqdaan awaamirteyda inaad qaadataan waliutimana waxay ku xiran tahay lianlaa yakuuna saysan ugu ahaan linaasi dadka calaykum dushiina xujatun daliil iyo waliutima inaan dhammaystiro nicmatii barwaaqadayda calaykum dushiina idiin barwaaqeeyey iyo walacalakum inaad tahtaduuna hanuuntaana toostaan kamaa arsalnaa fiikum rasuulan ayib macnaheedu iyadana wuxuu ku xiran yahay waliutima nicmatii utimu nicmatii barwaaqadayda waan dhammaystirayaa itmaaman dhammaystir oo
كما سيديو كاليتا أرسلنا نصو دري فيكم لحدنا رسول كاسو منكم إذن كإذن كترسان رسول كاسو يتلو أخرنا عليكم دشينا آياتنا آيات كينا وآيات قرآن كها أو يزكيكم إذن طهيرية وطاعة إيا خيرك عبادة إذن طهيرية ويعلمكم إذن بريا الكتاب كتابك إيا والحكمة السنة ويعلمكم إذن بريا ما شيء لم تكونوا إذا نهين تعلمون كوا قرنية فاذكروني أحصى أذكركم والد الحصية واشكروا إيقو شكريا لي أنيقا ولا تكفروني هايقو قالوا بنا يا أيها الذين كوا آمنوا حق الرمي استعينوا كالميستا بالصبر أتكيسشو يو الصلاة تكشو إن الله ألي مع الصابرين كوا أتكيستا لشيرن كذو يخير كوا أتكيستا ولا تقولوا هادهنا لمن روحي يقتل لدلي في سبيل الله إله جدكيسة أموات هم أيغو أموات كواد انتي هادهنا كواد انتي وي هادهنا بل أحياء بل هم أيغو أحياء كوان اللولوي ولكن لا تشعرون ويدا دريمين ولنبلونكم وان إذن امتحامينا بشيء وحو من الخوف عبسئة يوال جوعي قاتشو يوال نقص دماناشو ومن الأموال حق حوله سكين دمان يوال أنفس حق نففيالك يوال ثمرات مرها وبشر بشاري نبي محمد الصابرين كوا أتكيسته الذين كوا صو إذا قورتي أصابت إكوهبستهم أيغا مصيبة بلايو يدباتو قالوا أرمي إنا أنه لله ألا نصغنانا وإنا أنه إليه حقي سراجعون كوا نغريانا أولئك كواس دبكم مركو كود عقابك أصبره tilmaamaha waxaana ilaahay abaalkooda ka dhiga kow calayhim kurkooda waxaa ahaaday salawaatun ammaan yaalo iyo ducooyin oo min rabbihim rabbigooda xaggi ka ahaaday kow iyo waraxmatun naxariis oo rabbigood xaggiisa ka ahaatay labo walaa'ika kuwaasi hum ayaga almuhtaduuna kuwa hanuunsana saddexda tilmaamood way helayaan alhidaayah waraxma wassalaah iyo wabashir saabiriin